Somaliland waxaa kordhay tirada dadka u soo ridinaya xanuunka safmarka COVID-19 inta u dhimanaysa. Dhawaantii wasiirka wasaaradda diinta iyo aqoonta Somaliland Sheikh Khalil oo ka tirsan guddiga COVID-19 ayaa sheegay in kordhay tirada dadka u soo ridinaya ku dhintay xanuunka COVID-19. Wasiirka ayaa ka deeriyay xaaladda waxaanu sheegay 12 maalmood ugu horeeyay bisha Abriil la diiwaangeliyay dhimashada 64 qof oo dhintay cudurka COVID-19. Waxaanu bulshada ugu baaqay inay guryahooda ku tukadaan salaada tarawih bisha Ramadaan. Dhinaca kale warbixinta maalinlaha ah ee shalay wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa shaashadsan 50 qof oo hor loo ku dhacay cudurka safmarka COVID-19 kadib markii baaritaan lagu sameeyay dad gaaraya 280 qof halka tirada dhimashada guudna ay gaarayso 232 qof. Somaliland ayaa dhawaan sheegtay in labada bilood ee la soo dhaafay dad badan soo ritay xanuunka safmarka COVID-19 muujadiisa labaad. Wasaaradda caafimaadka Somaliland ayaa sheegtay in xoojinayso wacyigelinta iyo qaababka kale looga hortagay faafidda cudurka COVID-19 haddii loo baahdo inay soo rogi doonto tallaabooyin dheeraad ah.